Bismillahir Rahmanir Rahiim. Halkan waa xanta wararka. Haddii aad ku cusub tahay nagu biir daawade, adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka, warbixinada iyo dhacdooyinka aynu falanqeyntii faaqidaada ku sameeyno. Waxyaabaha aad daawan doontaan barnaamijkan aan idinkugu soo gudbin doono hadduu la weyn raali ka noqdo waxa ka mid noqon doona dowladda Soomaaliya oo ka mamnuucday dadka baraha bulshada isticmaala baahinta wararkaasi Al-Shabaab. waxaan idin soo gudbin doonaa dowladda tallaabooyin qaaday iyo maxbuuskii xabsiga ka soo hanjabi jiray Xasan Daahir Aweys oo isna laga qaaday tallaabo xilli xayiraad lagu soo rogay wadaadkaasi. waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdooyinka ku gadaamanayno barnaamijkan ku falanqeyn doono. sidoo kale waxyaabaha daawan doontaan waxa ka mid noqon doona waanu barnaamijkan ku falanqeyn doonaa hadduu la weyn raali ka noqdo wiilkii ku jiray godka dahabka laga qodayay oo ugu dambeyntii meedkiisii la soo helay. waxaanu eegi doonaa warbixin iyo dhacdooyinka ku gadaaman waanu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doona hadduu la weyn raali ka noqdo. qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan daawadayaal saaxiibayaal. ku biira ka mid noqda daawadayaashii saaxiibada sida tooska ay nagu xiran adigoo la wadaagaya saaxiibadaada wararka, warbixinada iyo dhacdooyinka aynu falanqeyntii iyo faaqidaada ku sameeyna alaaba. dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday baahinta wararka ururkaasi Al-Shabaab cid kasta iyo warbaahin kasta. dowladda Soomaaliya waxay dambi ka dhigtay in la faafiyo wax kasta oo la xiriira Al-Shabaab sida muuqaalada, sawiradooda, codadkooda iyo fariimaha ururkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay inay xirtay 46 baro dhanka internetka ah oo Al-Shabaab u adeegsanaysay faafinta fikrikooda, sida uu sheegay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala. waxa kale uu sheegay inay ku markaasi daba jiraan oo ay xirayaan bara kale oo ay website ay ku jiraan. warka Al-Shabaab lama faafin karo, waa aan tallaabo ka qaadeynaa ciddii faafisa afkaartooda. waxaan xidhnay buga kale duwan, kuwa kalena waan xidhaynaa, ayuu yiri Cabdiraxmaan Al-Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya. si kasta oo xaaladda noqoto, waxa uu markaasi sheegay in tallaabooyinkan ay yihiin kuwa markaasi waxyeeleen markaasi noqon karaya dadku kuwa u geysan karaya, maadaama inta badan ay noqon karayaan, ayuu yiri kuwa faafintaasi ay sababi karto in dhalinyaro kale ay qortaan ururkaasi oo dacayad loo sameeyo, sida hadalku u dhigay, isagoo uu sheegay inaysan marnaba aqbali kareenin cid kasta iyo hay'ad kasta oo baahisa wararka ururkaasi. sidoo kalena ay indhaha ku hayaan oo ay ku daba jiraan, sida hadalku u dhigay, oo ay soo qaban doonaan. maxbuuskii xabsiga ka hanjabiyay Xasan Daahir Aweys ayaa isna xabsiga markaasi uu ku jiro oo warbaahintu uu ka isticmaali jiray laga joojiyay kadib markii uu aad u gudbiyay xogo iyo dhacdooyin markaasi maxbuus nimadiisa shaki xooggan gelinaya. dowladda Soomaaliya ayaa xayiraad cusub ku soo rogtay wadaadka lagu magacaabo Xasan Daahir Aweys oo xabsi guri ku jira una xiran fikirkiisa iyo inuusan markaasi ka tanaasulin afkaartiisa uu ku taageero ururkaasi. Xasan Daahir Aweys oo muddooyinkii dambe baraha bulshada kala hadlayay dadka doodo badan dhaliyay ayaa hadda tallaabo laga qaaday, waxayna wararku sheegayaan in laga joojiyay adeegsigii barta bulshada lana soo koobay xorriyaddii ay hore u siisay dowladda Farmaajo. wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo la weydiiyay fariimaha Xasan Daahir Aweys wadaadkaasi mariyo barta bulshada ayaa sheegay inuusan jirin qof loo ogol yahay inuu argagixiso taageero, ayna tallaabooyin ka qaadeen arrintaasina laga bogsan doono oo aanay dib u soo noqon doonin. arrintan ayaa timid kadib amaro ay markaasi soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ku saabsan inaan la baahin karin fariimaha Al-Shabaab lana xiray xarumaha baraha bulshada ku leeyihiin. kadib markii uu markaasi
xasan daahir aweys uu gudbiyey ama uu bixiyey dhacdooyin hadalla dood badan abuurana uu markaasi sheegay. wiil ayaa god markaasi dahabka laga qodo ku dhacay dhowr cisho ama 2 maalmood kadib waa la soo saaray. wararku waxay soo sheegayaan gobolka Sanaag naga soo gaaraya in maanta lagu guuleystay in meedkiisa la soo saaro wiil dhalinyaro ahaa oo ku dumay god dahabka laga qodo ku yaala Milxo. ninkan oo lagu magacaabi jiray Maxamed Siciid ayaa waxaa haatan la soo gabagabeeyay howlgalkii lagu soo bixiyay meedkiisa oo soo bandhigay saqdi dhexe ee Khamiista. dadka deegaanka ayaa adeegsanayay qalabka ay heli karaan waxaana saacado badan ku qaadatay qodidda godkaasi ku dumay marxuumka. sidoo kale qaar ka mid ah dadka markaasi deegaanka ayaa waxay sheegeen in aanay jirin cid maamul ah oo gacan u fidisay intii ay guda jireen qodista godkaas oo ahaa mid aad u dheer. Milxo oo ah deegaan hoostaga degmada Laasqoray ee gobolka Sanaag ayaa halka ugu badan ee laga qodo macdanta Soomaaliya noocyadeeda kala duwan. waxaan halkaasi ka howlgala shaqaale markaasi kala duwan oo soo saara dahabka iyo macdanta kale ee laga helo deegaankaasi. dhacdadan ma aha tii ugu horeysay ka dhacda Milxo, waxaana xaaladda ugu sii dartay godadka oo loo sameeyay si markaasi miliqsan, waxaana horey ugu dhintay shaqaale kale oo iyagu ay waxyeello xooggan oo ballaaran ay ku soo yeelatay tallaabadaasi amaba waxyeeladaasi dhalatay. si kasta oo xaaladda noqoto, wiilkan ayaa kul sii horeysay wararkiisii si weyn loo wadaagay barta bulshada ay ku xiriidho, kuwaasi oo iyagu markaasi ka xumaaday xaaladdu ku sugan yahay dhalinyaradaasi ninkaasi ah. ninkan ayaa magaciisa lagu sheegay Maxamed Siciid Cali, waxaana uu deegaanka dhacdadaas ku qabsatay uu yahay deegaanka Milxo ee Buuraleyda Calmadow ee gobolkaasi Sanaag. ninka waxa uu ka mid ahaa dadka shaqeeya arrimahaasi, sidoo kalena godka ayaa la duntay xilli la sheegay inuu ahaa qofkii ugu dambeeyay. sidee hadaba wax u dhaceen? Maxamed Daahir Jaamac oo Milxo jooga ayaa waxa uu sheegayaa inuu ka mid ahaa ama mid ka mid ahi godadka uu ku dumay ninkaasi dhalinyarada ah xilli ay raggii kale ka tageen goobta. 12 habeenimo iyo meelaha ayay ahayd ilaa xilligaasi ciidii ninka ku dhuntay ama ku duntay ayaa ilaa xilligan la qodayaa. si kasta oo xaaladda noqoto, ninkan dhalinyarada ah ayaa la sheegay inuu markaasi iminka isagoo mid laga soo saaray godka, taasi oo iyana markaasi ahayd xiisad kale iyo dhacdo kale oo eedeeda ay qaadan karayaan mas'uuliyiinta iyo dowladdu, maadaama loo jeediyey in aysan wax tallaabo ah aysan ka qaadin arrintan, sidoo kalena aysan ugu gurmanin arrinta ku gadaaman in la caawiyo qalab iyo taakuleen kale oo lagu soo saaro wiilkaasi godku ku dumay. si kasta oo xaaladda noqoto, ilaa 20 mitir ayaa la sheegayaa inuu markaasi waa qiyaas ahaan 40 mitir ayaa la sheegayaa in uu markaasi hoos u qodnaa godkan, taasi oo iyana markaasi keenaysa dhacdo kale oo markaasi ahayd xaalad khatar ah oo uu galay oo uu geeriyooday. kol sii horeysay dadku ayaa isbarbardhig ku sameynaya dowladda Morocco oo wiil yar oo sidaas oo kale dhacdo ceenkaasi oo kale u qabsatay god ku dhacay ay wax walba iskugu geysay, ugu dambeyntiina ay soo saartay isagoo nool, balse intii isbitaalka loo sii waday uu geeriyooday. taasi oo dunida si weyn u saameysay. dhacdadaasi oo kale ayaa markaasi Soomaalidu intooda badan Morocco ka codsanayeen ugu yaraan xataa inay gurmad u sameyso wiilkaasi dhalinyarada ah si markaasi baxnaano iyo noloshiisa loo badbaadiyo. waxayse ahayd dhacdadaasi mid iyadu markaasi siyaabo kala duwan dadku qaarkii ay markaas u dhigeen xilli ay sheegayeen inay tahay baaq guud oo loo jeedinayo dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladaha xubnaha ka ah dowladda markaasi federaalku. xanta wararka ayaa daawanaysaan